sorry. بلوك هذه دي ايه سوق اليمين هاي واحد
dowlaha waxbarashada iyo dhammaan safiirka Soomaaliya u fadhiya Mudane Maxamed Wacay iyo xildhibaanada Soomaaliyeed ka kooban aqalka sare aqalka hoose waxaa sidoo kale nala jooga taliyaha ciidanka xoogga taliyaha booliiska Soomaaliyeed marka caawa waa habeen qaali ah waa habeenkii reer qaadka waxaa martinoo ah in badan aan sugaynay madaxweynehii marna ummadda Soomaaliyeed xurriya tusaalena uu ahaa maalinkii la doortay in Soomaaliya ka gees iskugu soo baxay ayadoo ku doortay cod aqlabiyad ah waxaan kaga mahadcelinaynaa xildhibaanadii sharafta lahaa ee noo soo doortay madaxweyne dhalinyaro ah aan ku kalsoonahay barnaamijkeena wuxuu isugu doori doonaa khudbado heeso gabayo sidaas doortiin madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo xilligii ra'iisul wasaaraha magaalada Qaahira ee madaxweyne sagaalkii Juun waqtigii oo ka jiray dalalkan carabta isbedelo annaga oo taageersaneen inaad xilka noo sii haysid laakiin waxay leedahay mahadiya caawa adigoo madaxweyne ah inaad nala joogtid waa farxad ayay noo tahay waxaan rabaa inaan ku bilaabno barnaamijkeena waxaa lagu bilaabno waxaa ugu khayrka badan waa qur-aanka kariimka ayaan ku furfurnaynaa oo noo akhrin doono walaalkeen Idris Maxamed Fiidow si uu noo furo aayadaha qur-aanka kariimka Idris
إلهي نوافقه آيات القرآن الكريم كا الواقع يقول كا لا يقول بعمل الإسلام أيضا waxaan rabaa inaan ku filmino hees oo soo qaadi doono barnaamij saacad runtiga fannaan Soomaaliyeed oo runtii la wada garanayo ka mid ahay fanaaniintii waaweyneed ee hobolladii waaberi هذا ولا بروحه والله ما
xafladda caawa waxaa lagu qabanayaa hool ka mid ah hoolasha jaamacadda Azhar ee ku yaala waddanka Masar khaasatan xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida weeye waxaa muuqata ugu yaraan in kumaakum Soomaali ah oo joogta waddanka Masar in ay ka soo qayb galeen xafladda soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa madaxweynaha la socda Cabdulqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore oo degan halda Masar iska degan ayaa maxay ka mid ah wafdiga caawa martida ah waxaa kaloo la socda wasiirka khaarijiga Yusuf Garaad waxaa la socda safiirka Jamhuuriyadda Masar fadhiya ee Soomaalida waxaa kaloo la socda wasiirro kaloo fara badan caawa waxaa maxay jaaliyadu ay isugu timi si ay u soo dhaweyso madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo madaxweynaha waxaa maxay aan sheegaynaa in maxay martiqaad loo fidiyay bishii labaad bishii Febraayo markii la doortay laakiin waqtigan ayay ku soo beegantay inuu Masar yimaado madaxweynuhu wuxuu la qaatay maxay kulamo fara badan wuxuu la qaatay madaxweynaha Masar iyo wasiirro fara badan oo ka tirsan xukuumaddaas kulankaas ama masalan booqashadu waxa ay qaadatay 3 cisho waxa aanay ku gabagabaysan tahay caawa oo bariba ama baxaya sida aan rajaynayo madaxweynuhu kolley hadda maxay waxa la sugaabo waxa weeye waa kelmadaha ay oran doonaan wufuudda la socota madaxweynaha kadibna waxaan sugnaaba waa kelmadda madaxweynaha ee ku aadan socodkiisan iyo kelmadda uu oranayo dadka Qaahiro jooga ee Soomaalida ah وهذا وين التقطت عفسي وعفسنا سوا والله يعني عفسنا ساميو دور محمد قصد ده سمعنا هذين الشعب الصومالي واحد بكره كاسمك تقول كل ما فرماجة هليكي فرماجة هليكي ما ترى القاهرة عدنا هاي فرماجة لويلي
maxayde xusid mudan in ay tahay waqtigii ugu badnaa ay Soomaali joogto Qaahira yani tirada ugu badan ee joogta maxayde waddan Carbeed marka laga yimaado Sacuudiga iyo waxaas waxay noqonaysaa Masar bay noqonaysaa iyo Suudaan Masar hore aad maxay Soomaalidu iman jirin arday ahaan baa lagu iman jiray laakiin hadda maxayde tira aad u fara badan baa joogta Masar tirooyinka fara badan waxay keentay in dhibaatooyin badan ay dadka la soo gudboonaadaan oo taxadiyo xagga maxayde amniga iyo wax kasta ay maxayde u banbaxaan dadka maxayde doonayaan inay ka sii baxaan waddanku dhibtooda dib badan baa haysata kulli madaxweynaha waxa uu taala hawl badan oo maxayde ay tahay in kala hadlo masaarida kala hadlo sida dadka jeelasha ku jira madaxda ah iyo dadka maxayde dhibaatooyin kale amni haystaan kulli waa laga sugaya madaxweynaha in loo gudbiyo qoraallo rasmi ah oo maxayde uu gudbin doono xukuumadda masaaridaasi dadka Soomaalida ee fara badan ee ku dhibaataysan waddankan xaaladooda looga qabto madaxweynuhu kulli dadka kulmay waxaa ka mid ah Sheekh Al-Azhar oo la kulmay waxa la kulmay madaxweynaha masaarida wasiirro hoosana kulli wala kulmay wasiirada codka kulli inaan soo gaarin malaynayaa laakiin xafladdu waxay ka socotaa Qaahira waxaa jooga amniga masaaridu korku ka ilaalinaya xafladda waayo tiradu aad u badan tahay wax kasta oo dhici karaan xafladihii loo qaban jiray madaxweynayaasha Soomaalida waxa weeye marka kale waxa xafladii ugu sareysay ama xafladii ugu meeqan sareysay la qabto madaxweyne Soomaaliyeed waqtigan hadda la joogo taasna waxa weeye karaamada iyo makaanada uu ku leeyahay madaxweynaha Farmaajo qulubta Soomaalida dhexdeeda